waxay ahayd bishii Oktoobar ee 1967 waxaa lagu jiraa guri ku yaala dhismaha caanka ee Waldorf Astoria ee bartamaha Manhattan ee magaalada New York. Wafdi Soomaaliya ka socda ayaa la fariisanaya wafdi matalaya dowladda Mareykanka. Waan u soo noqonayaa cidda hogaaminaysa wafdiga Soomaaliya, laakiin dowladda Mareykanka waxaa wafdigiisa u sida siyaasi caana awood badan oo saameeyay dowladda Mareykanka iyo dunidaba. waa Henry Kissinger. Kissinger waxa uu ahaa maskaxdii hagaysa siyaasadda arrimaha dibadda dalka Mareykanka xilligii uu socday dagaalkii qabooba, nin la xaajooda quwadaha ugu waaweyn adduunka, nin go'aamadiisu ay dhaliyeen dagaallo iyo heshiisyo nabadeed oo caalami ah, isla markaana si toos ah u jiheeyay siyaasadda adduunka xilligiisii. waa nin marka uu hadlo dalal badan ay dhagta u raaracshaan, ninka dhanka uu u dhaqaaqa ma ahane dhanka kale ay dunidu ka dheeliso, laakiin guriga iyo doodda ka dhacaysa waxa uu la kulmayaa mucjiso uusan dhaabin. waxaa fadhiya wafdiga Soomaaliya hogaaminaya wasiirka biyaha iyo macdanta ahna kusimaha wasaaradda arrimaha dibadda Xuseen Cabdulqaadir Qaasim. malaha waxa uu hogaaminayaa wafdi ka socda dal yar oo sabool ah, laakiin fikirka iyo mowqifyada uu xambaarsan yahay maaha